بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دمان وان سلام هيا umada Soomaaliyeed meel walba ay joogan waxaan rabaa inaan maanta halkan ku duubo taxyar oo kooban oo ka hadlaysa abaarta maadaama sanooyinkan dambe Soomaaliya ay ku jireen marxalad abaar Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka baryaynaa inuu naga bixiyo abaarta iyo dhibaatooyinka kale oo dalka haya waxaan hadda garahay maasadayda gabaygayga wuxuu ku bilaabanayaa sidaan ararteeda maasada markay urisan laabtaydu ayaantii asbuucan qoraa agabka taariikh markaas bay ujeedadan lahaa aayar ii furane kuma eedab daroodo murtida wuu abtiriyaa aan iftiinsho maanto kale ii okoon yahay adiya ilaah bari ayaan ku iftitaaxoone eebow amuuraa jiriya ama rawaaweyne eebow abaara dhacoona la ihlaakeeye eebow adduunyadan lahayn nala ka ayrteeye eebow ameeradii la waa arina yeelkiye awalkiina loo iyo idaa soo itaal dhigay ashjaartii wax laga daaqi jiray naga xaloosmeen qofkii salkii baa abar kaga aroonay eebow islaamkii wakaas aaminka ahaay oday dhalaan iyo kurtood ololkii saameeyay eebow abaartan darteed bay dhamaan aragii beeleene kulay anigu arintan ma garan aragtidaydii asnaam laguma caabudin dhulkan aabid waligii kaniisado antii laga arumay laguma aadayne imtixaanka sababtiisu waa inaan ogaanaa hadii aan absaar leenahay aragti dheeraada istighfaarta aan badino waa nala incaameen istighfaarta aan badino waa nala incaameen